Welcome to Mogadishu Cooking, the kitchen for Somali delicious food. Cuntada macaan Soomaalida. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waan idin wada salaamay dhammaantiin akhyaarey kusoo dhawaada muqdisho cooking. maanta waxaan inoo sidaa salad laba nooc oo salad ayaan inoo sidaa insha allah. labada nooc ee saladka ah waxa aan ka sameynayo insha allah ila arka si fiican uga bogta haddii ilaahay yiraahdo. maxaa digsiga waxaan ku shubay saliid, maxaa la yiraahdaa saliidaas oo aan rabo inaan ku shiilo shrimp. halkan waxaa igu jira shrimpkii, kabacdi waxaan ku darayaa xawaashiyada milix iyo paprika iyo basali iyo huruud. intaas ayaan isku dhex walaaqayaa. markaan isdhex geliyo in yar isku yara walaaqo insha allah ayaan waxaan sameynay digsigii in yar iisoo yara kulaaday oo saliidii ay yara kulaatay ayaan ku darayaa. kabacdi waan ku yara walaaqayaa ilaa uu ka bislaanayo. haddii ilaahay yiraahdo kolley marka qofku isaga garanaya markuu bislaaday dhaqso iska bislaanaya, wax saa u weyn ma aha oo waqti badan qaadanaya. maxaa la yiraahdaa markuu isdhex galo insha allah ayaan ka dejinayaa. qalluhu waa leeyde qaad cusalaad hanuuqun oo qabriga iyo ilku qalbigaaga yuun ka bixin. sixnigan waxaa igu jira salad. saladkaas aan soo jarjaray, waxaan ku daray basasha casaanka ah ama baabulka. dhinaca waxaan ka saaray waa xabuub aan soo jarjaray ama tamaandho. dhinaca kale waxaan saaray waa barbarooniga akhtarka ah. maxaa la yiraahdaa dhinacan kalena waxaan saaray waxa weeyaan barbarooniga huruuda ah. halkan dhexdana waxaan dhigayaa saliida oyoliifada midhaheeda, maaha saliidii waxa weeyaa oyoliifada midhaheedii. maxaa la yiraahdaa kabacdi waxaan kusoo darayaa waxa weeyaan arabakhi ama galey ama sweet corn oo aan soo kariyey. marka maxaa la yiraahdaa sweet cornkaas iminkana waxaan soo qaaday promise ama shrimp, hadba sidii aad u garanaysid. maxaa la yiraahdaa ayaan dul saaray. marka maxaad sameynaysaa, waad isku dhex walaaqaysaa haddaad aad ugu doontid. sigaarka la qiijayo qaadka isku cuuni oo qabaan waana casanolo shaada qiima gaali. bileerkan waxaa igu jira waxa weeyaan waa nooc kale. aan rabo nooc kale inaan u sameeyo salad, aan rabo inaan ka sameeyo chicken. marka halkan chickenkii aan biyo kusoo kariyay iyo milix yar ayaa waxay igu jiraan bileerka. waxaan ku darayaa waxa weeye sactar, milix, basali iyo paprika, huruud iyo xawaashi isku jira. intaas ayaa igu jira baalka yar. maxaa digsiga marka hore saliid ayaan ku shubay, basbaas akhtar ayaan ku daray isagana si uu kuleyl uga dhigo. waxaan sameynayaa markaa inta aan isku yara qaleeyo oo isku yara qalowdo, waxaan ku darayaa isagana in yar rumaan ah. rumaankaas markaa inta badan dhanaan yar ayuu siinaya. hilibka la huurinaya ama la shiilaya ayaa lagu daraa. dhanaan iyo macaan ayuu siinaya, sidii galiilo kale ka dhigaya. intaas markaa isku shiilaya. intaas markay isugu kay shiilanto ayaan saladka isagana soo diyaarinayaa, dusha ka saaraya. dadka raba markaa inay diet ka galaan oo inta badan saladka marka la yiraahdo saladka cuna ku oranaya saladkii ma cuni karayno, salad cunana la ku yiri wax keenaya saladka inagu hadeenu Soomaalinahay ma qurxisano. laakiin saladku wuxuu ku wanaagsan yahay iminka halkan waxaad ku cuni kartaa waxa jeceshana waad ku cuni kartaa sida sabaayada oo kale, cayshka oo kale, maxaa la yiraahdaa khubuska oo kale, waxa jecesha waad ku cuni kartaa. balse hadii sidan intaad u ridatid sixnin ku ridatid ku cuntid way kugu soconaysaa, si wanaagsan waad u cunaysaa. adigana maxaa la yiraahdaa waxaad ka helaysaa waxa weeye sixni dheelitiran. marka wax ka maqan mala sixnigan. saladada marka insha allah salada badan ayaan idinla qaybsanayaa oo noocyo badan ah. wixii commentiya, shareta, liketa, subscribe ku waa dhinaceena. Thank you for watching Mogadishu Cooking. Please don't forget to subscribe, like, share and comment.